Assalaamu calaykum kusoo dhawaada muuqaalkan waxaan kugu soo bandhigi doonaa barashada cilmiga kombiyuutarka muuqaaladan waxay inoo noqon doonaan kuwo tixana waa maxay kombiyuutar waa aalad ku shaqeysa korontada kaas oo aan ka heli karno information ka imaaday dibadda as an input form sidoo kale waxay soo saaraysaa natiijo as an output form. Parties of computer qaybaha computerka wuxuu ka kooban yahay saddex qaybood oo waaweyn. Qaybta koowaad input unit ee ay ku jiraan keyboard, microphone iyo scanner. Qaybta labaad system unit oo ay ku jiraan processor, motherboard, RAM. Qaybta saddexaad oo ah output unit oo ay ku jiraan monitor, printer, speaker. Keyboardka wuxuu ka tirsan yahay input units. Keyboard waxaan u isticmaalnaa inaan ku qorno awaamirtaas oo aan doonayno computerka inuu noo fuliyo. Keyboardku wuxuu leeyahay function keys. Function keyska waxaa ka mid ah F1, F2, F3 ilaa F12. Sidoo kale wuxuu leeyahay number keys. Number keyska waa 1 to 10. sidoo kale letter keys ayuu leeyahay oo ah A to Z. Punctuation keys oo loo yaqaano calaamadaha sida question mark iyo calaamad tacajub iyo calaamado kale oo lamid ah. Microphone waxaan u isticmaalnaa in aan ku duubno cod computerka dhexdiisa. Scanner wuxuu soo gudbiyaa xog ayuu computerka u soo gudbiyaa. Monitorkana waxay soo bandhigtaa xogta ama informationka. Mouse-ku waa pointing device aalad wax tilmaamta taasoo ku ogolaanaysa in aad dooratid waxaad doontid. Printer waa aalad ku ogolaanaysa in aad daawacdid dokumentiga. Function of input unit aaladaha input unitka waxaa loo adeegsadaa in lagu soo qaato xogta banaanka jirta si loogu shubto computer. Function of output unit aaladaha output unitka waxaa loo adeegsadaa in lagu qaado information ku jirta computerka la geeyo outside banaanka. Function of system units the system units of the computer waxay ka kooban tahay saddex nooc. midka ugu horeeya ALU oo loo soo gaabiyay arithmetic and logic unit waa halka uu ka dhaco operation system. midka labaad control unit wuxuu controlaa other units of the computer wuxuuna siiyaa signals calaamado. kan saddexaad memory unit waa meelka daatada computerka lagu kaydiyo waxayna ka kooban tahay RAM iyo ROM. RAM waxaa la random access memory, ROM waxa way read only memory. Software waxaa la kooxo programming oo ka qayb qaadanaya computer system. Softwareka hadda jiro waxaa loo qaybiyaa laba nooc. System software oo ka mid ah Microsoft Windows iyo application software waxaa ka mid ah Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access and PowerPoint. Hardware waxaa la qalabka uu ka kooban yahay computer. Operating system ama operation system waa isku xirka ka dhaxeeya computerka iyo qaybaha kale ee computerka. sidoo kale operating systemku wuxuu controlaa isku xirka kala dhaxeeya computerka iyo aaladaha kale sida printerka iyo screenka. Ports waxay ku taalaa qaybta gadaale ee motherboardka. sidoo kale waxaa loo adeegsadaa in lagu rakibo additional deviceska kale sida mouse-ka, keyboardka, monitorka and printer. Microsoft Windows waa program lagu kiciyo dhammaan programmeska computerka. sidoo kalena waa operating system of the computer. Standard icons on the desktop standard icons waxay ka soo muuqanayaan shaashada ama desktopka waxaana dhigi kartaa meesha doontid. sidoo kale marka Windowga lagu shubo standard icons waxay ka soo muuqanayaan dhinaca bidix ee shaashada waxayna kala yihiin document, my computer, network, recycle bin, internet explorer. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan.